Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada koorsada Something Academy. Marka casharkan wuxuu ku saabsan yahay xog ku saabsan forex-ka iyo koorsooyinka aan bixino iyo waxyaabaha ka faa'iidi kartid, waxyaabaha ka heli kartid, waxyaabaha aad kaaga soo kordhi kara marka noloshaadana saameynta ku yeelan kara. Marka waa maxay Something Academy? Horta waa maxay, maxay qabataa? Waa Something Academy waa madraso lagu barto culuumta sarifka lacagaha qalaad ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaan forex. Something Academy waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa 2016. Marka curriculum style marka waxaa xusid mudan inaad diyaarinay manhaj cusub aan ugu talagalnay arday walba oo koorsadeena kusoo biira ama academic inuu maro. Marka qofku wuxuu marayaa afartan marxalad ayuu marayaa. Kow beginner oo kasoo bilaabaya qofka, qof waxaa ugu talagalnay koorsadan qof bilow ah ee ku cusub suuqa forex. Waxaa laga yaabaa inaad tahay qof cusub oo forex maqlay ee ku badbadatay marar badan maqlay in forex lacag laga sameeyo laga faa'iido YouTube iyo Facebook iyo asxaabtiisa meel walba kasoo maqlay, laakiin doonaya inuu waxaan uu galo oo barto oo bilaabo oo laga soo bilaabo bilowga. Waa qof hadda oo cusub oo bilow ah ayaa ugu talagalnay. Koorsada labaad bixin waxaa intermediate oo ah koorso meel dhexaad ah. Koorsadan waxaa ugu talagalnay dadka suuqa forex hore wax u fahamsanaa laakiin wax u dhiman yihiin sida taxliilinta suuqa oo kale ay ku adag tahay, sida candlestick oo kale oo qofkaan fahamsaneen. Koorsadaasna intermediate waa. Koorsada kale oo saddexaad waxaa advanced. Koorsadan waxaa ugu talagalnay inaan ardayda ku barno istiraatiijiyadaha. Haddii aad rabtid inaad baratid istiraatiijiyad aad suuqan ugu shaqaysan kartid oo la hubo oo profitable ah oo malaayiin dollar ku sameyn kartid, lacag fara badan aad ku sameyn kartid oo aad kaga shaqaysan kartid suuqan muddo dheer oo accuracy-geedu uu yahay 99% uu yahay. Oo mar walba haddii istiraatiijiyadaas aad isticmaashid waxaa ballan kuu qaadayaa in aadan khasaaro dhan aadan is arkin marmar dhifa mooyaane. Marka istiraatiijiyadda aad dadka barna magaceeda waxaa la dhahaa price action strategy ayaa la dhahaa. Price action strategy. Qofka haddii price action-ka uu barto ama laga dhiso oo fahmo waa istiraatiijiyadda keliya ee ilaa ay hadda la hubo 100% shaqeynaysa. Marka laga yimaado istiraatiijiyadaha kale oo dhan waxaa ka muhiimsan price action-ka. Istiraatiijiyadda price action-ka haddii aad fahamtid suuqan sidaa doontaa ka yeelaysaa, ma fahantid? Koorsada afraad waxaa waaye risk management. Koorsadan waa koorso ku saabsan barashada xakameynta iyo maareynta khatarta forex ama wax afqalaad loogu yeero risk management. Marka koorsadan waxay khusaysaa risk management-ga. Waxaa lagu barayaa sidii aad u xakameyn lahayd khasaarahaaga, sida aad trade aad khasaaro ku jirto kale ugu bedeli lahayd faa'iido kale, qaabka ugu bedeli lahayd trade marka minus kugu hayo in profit si ugu bedeli kartaa. Maxaa u baahan tahay lot size-ka ay tahay, stop loss-ka, everything wax walba step by step ah aad ku baranaysaa. Marka waxaa jira course materials. Waxaa ka mid ah agabka aan bixino marka koorsada aan ku bixino. Waxaa ka mid ah qaabka casharada u bixino waa course materials. Qaabkooda waxaa waa video. Qofka waxaa marka website-ku iska diiwaan geliyo uu iska register gareeyo lacagta uu dhiibo fee-ga yarka oo laga rabo markuu baxsho. Qofka isku markiiba wuxuu helayaa videoyaal u diyaarsan oo qaab aad u qurux badan oo nidaamsan oo structured ah, quality leh, la hubo oo xataa sabuurada lagu sharxayo qofka oo qof badanaa haddii aad fiirisaan meel kasta YouTube-ka ama akademiyaasha kale qofka video waxaa lagu baraa in charts iyo war eber looga dhigo video 2 saac soconayo maanta oo dhan charts-gaas oo indhaha xanuun qofkana wax uu kordhayo inuu kusii wareero ma ahane. Videoyaashan waxaa waaye videoyaal oo macallinkii inuu soo qabsado oo sabuurada kugu sharxayo qalin iyo inuu qaato whiteboard ku sharxayo
halkaas faa'iido weyn aa kugu jirta is leeyahay. Sidoo kale waxaa jira audio maqal, waxaa jira codad maqal ah oo dhiirigelin iyo wareysi isugu jira. Yacni waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso koorsada maxaa maqal kaliya ay macnaha casharada maqalka maxay yihiin. Yani waxaa waa hadallo maaragtay dhiirigelin ah iyo baraarujin ah iyo sidoo kale wareysiyo aan la yeelano dad maaragtay suuqan 10 sano kusoo jiro khibrad maaragtay u leh aan la yeelanayno iyo talooyin. Marka wareysiyadaas wax badan ka kordhaa is leeyahay oo waxaa noqonaysaa professional trader. Sidoo kale meesha waxaa ka helaysaa books, yani buugaag kala duwan haddii aa lahayd maaragtay buugaag kala duwan oo maaragtay price action ah. Hadda waxaa jiro koorsada haddii aa nagu soo birtid waxaa maaragtay helaysaa buug af Soomaali ku qoran oo price action bes ku saabsan, istiraatiijiyada price action, maaragtay shuruudaheeda, maaragtay qawaaniinteeda ku saabsan ayaa meesha ka helaysaa. Sidoo kale waxaa jiro live zoom xiisado maaragtay live isbuuc walba waxaa ka qayb galaysaa 3 xiisad oo toos ah oo markaa suuq lagu falanqeynayo oo markaa istiraatiijiyadii aad ku barato koorsada ama fiidiyoyaasha ayaa ayadoo si live oo practical ah suuqa maaragtay la galayaa markaa faa'iido toos lagu sameynaa arkaysaa. Wax walbana sidaas ku ogaanaysaa. waxaa kaloo ka helaysaa koorsada newska wararka. Sida ka warqabtaan ma jirto hadda meel maaragtay ama ma jiro website laga helo wararka suuqa forex ku saabsan oo af Soomaali ku qoran. Dabcan dhibaato jirta waaye, laakiin haddii koorsadana ku biirtay website-keena waxaa ka helaysaa qayb dhan marka wararka aan soo dhigno. Warar kala duwan lacag ka soo baxaya, saameynta ay ku yeelan karaan lacagtaasi, dhaqaalaha waddanka ay ku yeelan karaan, yacni isbedelada la filayo, isbedelada siyaasadeed, midda dhaqaale iyo everything. oo maaragtay analyze-kooda iyo wax walba xilliga warkaas soo baxaan maaragtay sida warkaas lagu trade gareeyo, maaragtay sida newska lagu trade gareeyo, arrimahaas oo dhan meesha maaragtay ka helaysaa. Sidoo kale arrinta kale oo muhiimka ah is leeyahay ka faa'iidi kartid waxaa waa koorsadan softwares oo markaa yani software suuqa markaa ku taxliilinayo. waxaa kala soo degi kartaa 10 software aad diyaarinay oo kaa saacidaya inaad suuqa aad maaragtay taxliilinta ku fududeynaa. Yani intaad waqti badan aad ku luminaya jaartiga wax sawir leed, yani kuwan markaa software waxaa xusud waxaa laga yaabaa inay isdhahdeen ma robots maya robotka ma robotna mana isticmaalo. Robotka waa khasaare kaliya waaye oo markaa maanskiisa badan. laakiin softwaredan waxaa waaye software kuu maaragtay inta adiga trend line aad sawir lahayd markaa lineska aad qalad lahayd waxaa jira system oo 1 click haddii aad taabatid kuu sawiraya trend line-ka suuqa waqti xaadirkaas iyo support iyo resistance-ga maaragtay sidoo kale everything iyo maaragtay awoodaha lacagaha kale waxyaabahaas oo dhan oo software ah jiro si free ah loo soo degaysaa website-ka oo haddii aad iska diiwaan geliso koorsadan softwaradaas oo dhan ka faa'iideysaa suuqana maaragtay dabcan adiga maaragtay ka sheeko doona insha Allah faa'iidada ka sameeyso maaragtay faa'iido waaliya noqon doontaa doo Ilaahay yiraahdo. Marka course benefits marka maxaa faa'iido kugu jiro? waxaa ka soo hadalnay qaabka casharada u bixino, noocyada kala duwan maaragtay casharada maaragtay u bixino. Hadda marka waxaa waaye su'aasha maxaa adiga ka faa'iideysaa oo faa'iido kugu jira haddii aad koorsadan ku soo biirtid? faa'iidooyin kugu jira maaragtay kuwana kalifi karaya inaad maaragtay koorsadan ku soo biirtid waxaa ka mid ah waxaa helaysaa certificate. Yani waxaa ku siinaynaa shahaado caalami ah oo caalamka laga aqoonsanayo meel walba aad tagtid lacagta aad saartid oo caddeynaysa inaad maaragtay suuqan khibrad u leedahay. shahaadadaas marka waxay kaa caawinaysaa in aad maaragtay aad ka shaqeysid maaragtay international bankska sida bangiyaasha caalamiga ah oo kale inaad ka shaqeysid commercial bankska waxaad ka shaqey kartaa yani private bankska waxaad ka shaqey kartaa maaragtay brokerska la shaqey kartaa oo hadda yani haddii shahaadadana aad qaadatid something kadib ahaan brokerka FX Premise shaqo haddii aad u doonatid ama aad ka dalbatid oo kale codsi shaqo u dirsatid hore ka aqbalaan maxaa yeelay heshiisan maaragtay dhex maray yani shahaadadana way aqoonsan yihiin ayaga marka brokerska la shaqey kartaa. hadda arrintaas waxaa isleeyahay haddii shahaadadan ay heshid yani caqabad badan waxaa jirto oo la gudboon maaragtay Soomaalida ka haysta brokerka sida dad badan waxaa jira luqadda Ingiriiska aan fahmayn. haddii marka shahaadadaas aad qaadatid shahaadadaas aad ku siino
yacni shaqadaas maaragtay brokerka la shaqey kartaa baahi weyn oo dhanka soomaalida ka haysta maaragtay forexiskana maaragta waa ka caawin kartaa ma fahamtid sidoo kale waxyaabaha kugu kalifaya inaad koorsadan ka mid noqotid waxaa waaye waxa weeyaan exam and quizzes yacni qofka waxaan maaragta ka qaadaynaa imtixaan iyo maaragtay tijaabooyin yacni qofka isagoo imtixaan marin ama imtixaanka ka gudbin ee ku baasin maaragtay lama siinayo shahaado yacni marka hore imtixaan adag oo adagta inuu qofkaas ku baasa u dhigaynaa kadib qofka markuu ka gudbo oo markaa la jeegareeyo la hubiyo oo markaa review lagu sameeyo kadib aa shahaado la siinaa sidoo kale sababta saddexaad oo kugu kalifi karaysa inaad koorsadan ku biirtid waxaa waaye waxaa helaysaa live trade idea yacni trade idea mar walba helaysaa oo ku saabsan suuqa yacni annagoo markaa macalinkii maaragta khabiirka ahaa oo suuqa soo falanqeeyey sadapka markaa iyo u diyaarsan oo raba inuu maaragta toddobaadkan oo galo taliyo isha ku haayo ayuu maaragtay kula wadaagi doonaa waana ka faa'iidaysan kartaa adigana maaragtay wixii fikrad ah ku darsan kartaa khibradna waa korsan kartaa sidoo kale sababta maaragta afaraad ee kugu kalifaysa inaad nagu soo biirtid oo laga yaabo inaad kugu kalifto inaad naga mid noqotid waxaa waaye koorsadan aad ku biirtid iska diiwaan gelisid waxaa helaysaa lifetime signals yacni signals weliga aan maaragtay aan kaa go-een intuu akademiga jiro marka taadana fursad weyn aan isleeyahay inkastoo marka ujeedada aan u aasaasnay akademiga ay tahay qofka inuusan macnaha xornimo uu gaaro uusan ku tiirsanaan VIP signals yacni sababta koorsooyinkan aan u sameyna waxay ahayd qof dadka waxaa jiro yacni dad qaar suuqii macnaha besigay fahamsan yihiin laakiin saas tahay VIP signals ay gataan ay lacag ku baxshaan ma yaqaanaan sida signal loo samaysto yani ma yaqaanaan waxaa maaragtay sida signalska maaragtay looga faa'iidaysto signal maaragtay ma samaysan karo qofkaas suuqa ma taxliili karo yacni caqabadahaas oo dhan ayaa markaa ugu talagalna koorsadan oo haddii yacni haddii markaa u baahan tahay signalska sida ka faa'iidaystid waa ka faa'iidaysan kartaa adiga haddii u baahan tahay keliga okay marka muxuu yahay xalka aan kuu hayno oo aad ka faa'iidi kartid koorsooyinkan maxay maaragtay caqabadaha ama baahi ay kaa daboolaysaa xalka ama solutionka ee daboolayso oo maaragtay xalka u noqon kara caqabadaha aan xalinayno problem solvingka aan sameynayno waxaa ka mid ah koorsadan haddii aad qaadatid koorsadan waxay kaa xalinaysaa caqabado badan oo laga yaabo inay noloshaada la daalaa dhacayso yacni waxyaabaha marka caqabadahaas waxaa ka mid ah shaqo la-aan oo kale koorsada markaa dhammaysid waxaa hubanti ah inaadan shaqo la-aan ahaan doonin waa yacni waa boqolkiiba boqol wax hubo waa yacni shaqo la-aan maaragta meesha kaga haraysa mar allaali marka koorsada aad dhammaysid shahaadadana lagu siiyo sidoo kale waxaa ka baxaysaa faqriga haddii markaa inkastoo irsaaqada ay ku xiran tahay hadduu ilaahay wuxuu kuu qoray wax ka badan maaragtay heli maysid laakiinse waxaa maaragtay boqolkiiba 80 dadka aan soo saarnay yacni noloshooda waa isbedesho run ahaantii taasaa maaragtay waa arrin maaragtay jirta waaye koorsada markaa aad dhammaysid waxaad dareemi doontaa isbedel dhanka nolosha yacni horumar ayaa markaa gaari doontaa sidoo kale waxaa waaye waxaad ka bixi doontaa addoonsiga again marka addoonsiga waxaa ka wadaa yacni waxaa laga yaabaa inaad shirkad u shaqeyso ama boos nin shirkad islaameed oo leeyahay marka laga yaabo inaad shaqaysid yacni marka haddii aad shirkad u shaqaynaysid adina aan madax banaaneyn yacni waxaad ku shaqaynaysaa hadafka iyo aragtiyaha qofka iska leh shirkadaas yacni waxaa adiga dhan waxaa maaragta ku fadhisaa riyo nin kale inaad dhistid yacni maadaama ninkan hadafkiisa iyo ujeedooyinkiisa aad ku shaqaynaysaa isagaa horumar gaarsiinaysaa isagaa maaragta noloshiisa inay heer sare gaarta aad ka qayb qaadanaysaa halkii adiga aa noloshaada aa heer isgaarsiin lahayd ama halkii adiga markaa noloshaada meel sare isgaarsiin lahayd marka arrinta maaragtay ugu muhiimsan qof walba uu raadinayo waxaa waaye annagana koorsada markaa dhammaysid aad ku tillaabsan doonta waxaa waaye success ama guul inaad gaartid waa maaragtay miraha ugu dambeeya ee kasoo bixi doona maaragtay koorsadan waa waxa maaragtay qof walba uu raadiya anigana xoogga aad saaro guusha after you learn you will success markaa baratid kadib waa guuleysan doontaa boqolkiiba boqol waxaa noqon doontaa qof nolosha maaragtay heer sare ka gaara oo guuleysta
qof waxaa noqon doontaa dhaqaale ahaan madax bannaan oo maaragtay xorriyad haysta, qof waxaa noqon doontaa maaragtay yacni isku filan noloshiisa maareyn kara, qof waxaa noqon doontaa hantiilo ah. intaasoo dhan baa noqon doontaa haddii aa koorsadan aad dhammaysid. marka waxyaabaha ku tillaabsan doonta waxaa ka mid ah xornimo dhaqaale inaa heshid. waxaad ahaan doontaa qof dhaqaale ahaan madax bannaan. sidoo kale waxaa maaragtay heli doontaa hubanti ah, shaqo hubanti ah, shaqo aanay cidna maaragtay aan maaragtay kaaga daba imaaneyn, ama cidna aysan ku dhehaynin shaqadan waa kaa bedelnay naga tag camal, ama shaqadan waa laga eriyey, ama shaqo aan lagu xujeynin qabiilkaaga, beeshaa ka soo jeedid, gobolkaa ka timid, magaalada ka timid, waxaasoo dhan laguma xujeynayo haddii aad baratid. yacni forex-ka waa madax bannaani, xilligaa doontaa shaqaysanaysaa, adiga ayaa boos isku ah, adiga ayaa shaqaysanaya lacagta, adiga ayaa ismaamulaya, xilligaa rabtaa shaqaynaysaa. maanta haddaa rabtid inaad la shaqayn waa iska dhaafaysaa, guriga iska seexanaysaa. haddii aad rabtid maanta inaad shaqaystid faa'iido samaysidna waa samaynaysaa, cid kaa hortaaga male. waxaa tahay qof adi iswadaa tahay, qof maaragtay ma tihid cid kale ee wado. sidoo kale waxyaabaha aad ku tillaabsan doontid waxaa ka mid ah nolol sare inaad gaartid, aad ku raaxaysatid dabaqada meel sare aad nolosha ka gaartid, oo markaa dabaqyo iyo guri iyo maaragtay alaabo wax walba aad samaystid oo noloshaada markaa horumar u keeni kara inaad ku tillaabsatid. waa arrin suurtagal ah haddii aad dhamaysid wixii maaragtay irsaaqada ilaahay kuu qoro waa xaggeeda. balse aniga 80% oo hadda macnaha qeybaha dambe aan video ku arki doonaa ardayda aan wax baranay iyo sida u guuleysteen aan soo saarnay, ardayda macnaha aan waxbarasho iyo shaqo abuurba u sameynay. yacni kaliya markaa wax baratid ma aha in wax lagu baro kaliya, waxaa kaloo meesha ku jiro shaqo abuurna waa sameynay. oo yacni waxaa awood u yeelanaysaa inaad suuq aad ka shaqaystid, xirfadaa lagu baray dabcan, xirfad aad ku shaqaysan lahayd waa qof yacni adoo maaragtay jaahil ah jaahilnimada kaa soo saaro ma fahanti. marka waxaa noqonaysaa qof macnaha maalqabeen ah oo taajir ah. waxaa suurtagal ah inaad muddo kooban aad ku taajirtid hadduu alla subxaanahu watacaala kuu qoro. marka guusha aad gaaraysid intaas waaye horta markii aad koorsadan aad dhammaysid, intaa oo dhan baa faa'iidooyinkaas iyo mirahaas iyo maaragtay aad ka faa'iidaysanaysaa. marka waxaa xusid mudan pricing-ka qiimaha, yacni waxaanoo maaragtay maadaama aan kasoo hadalnay qiimaha koorsadan ay leedahay, waxyaabaha aad ka faa'iidi kartid, yacni guusha aad ku gaari kartid. marka wax walbo qiimo lehna waa in maaragtay qiimo ay yeeshaan, price ay leeyihiin, ma fahamtay. marka fiiga aan ka qaadayno ardayga si wax loogu baro waa mid aad u hooseeya. ujeed koowaad ma aha inaan ardayga jeebkiisa lacag ka faa'iidno, ee ujeedkiina wuxuu yahay inaan ardayga u faa'iideyno oo isaga ka soo saarno qof isku filan oo noloshiisa maareyn kara. marka ujeedada koowaad waxaa waaye in yacnaha ma rabno qofka inaa asiga aan lacag ka sameyn. ujeedkeena koowaad waxaa waaye inaan qofka asiga u faa'iideyno oo markaa uu asiga shaqaysto oo isku filnaado, ma fahamtay. marka pricing-ka waxaa waaye koorsooyinka aan bixino 4 qaybood waaye. 4taas qayboodna mid walba waxay leedahay price gooni ay leedahay. midda koowaad haddii aan ku hormarno waxaa ka mid ah beginner course-ga, bishii waxaa laga rabaa $19 kaliya, waa lacag aad u yar. koorsadan waxay soconaysaa muddo 1 bil ah. koorsada beginnerka 1 bil ay soconaysaa. qiimaha koorsada waxaa waaye $19.99. waa wax $20 ka yar. yacni haddii loo fiirsho akadeemiyaasha qaar oo meelaha qaar dadka waxaa lagu baraa $300, qaar waxaa lagu baraa $500 bish, qaar waxaa lagu baraa $1000 bish, qaar waxaa lagu baraa $5,000, qaar waxaa lagu baraa lacag aad u badanaa lagu baraa, ma fahamtay. laakiin anaga markaa waxaa ka warhaynaa jeebka maaragtay qofka ardayga ka warhaynaa, oo markaa waxaa ka qaadaynaa lacag macquul ah oo xirfadan uu ku baran karo, ma fahamtay. sidoo kale intermediate-ka ayadana waa $29. koorsadan waxay soconaysaa muddo 1 bil ah. koorso walbo ka mid ah waxay soconaysaa 1 bil ah. marka kulligood waxay soconayaan 4 koorso markii isku daro 4 bil ah. advantage-ka sidoo kale 39 waaye. risk management-ga waxoogaa qiimaha kor u qaadana ayadana 59 waaye bishii ma aha hal mar oo kaliya bixinaysaa. yacni ma aha lacagtan waa isdiiwaangelin oo kaliya, hal mar aad isdiiwaan gelinaysaa kadibna weligaa waa ka mid ahaanaysaa koorsada. laakiin markaa beginnerka aad dhammaysid
aad intermediate-ka inaad u gudubtid waa in aad fiigaas aad bixisid adoo lacagtan isdiiwaangelinta bixin u gudbi kartid mana lagaa yeelayo sidoo kale advance markaad gudbayso waa inaad lacagta aad bixisid risk management markaad inaad barisid waa inaad bixisid lacagta isdiiwaangelinta lacagtaasna hal mar aad bixinaysaa maaha lacag bil walba aad ku khasbanta inaad bixisid marka waxaan rajeynayaa in aad markaa dhankaas aan idinkaga markaa fududeyn sababta aan qiimo ugu yeelayna waxaa waaye yacni wax walba oo qiimo leh lacag ay gooyaan waxaa qiimo lahayn aa free ah ma fahamtid marka inaad fahamteen aan u maleeyaa oo waxaa loo baahan yahay maadaama macallimiin badan ay ku jiraan meesha oo nala shaqeeya waxaa loo baahan yahay macallimiintaas waxay u baahan yihiin mushaar iyo dad inay macnaha ay ku shaqeeyaan marka that's is why fiiga marka ardayda lagu qaada ilaan waxaa rabaa qof dhan maaragtay macquul maa macallin reerkiisa jooga inaad dhahdo kasoo tag haddana maaragtay zoom soo gal maalinkasta live soo gal ardayda casharo bar freena maaragtay ku bar waxaas taas macquul maa qofku wuxuu u baahan yahay yacni fee markaa uu maaragtay shaqada uu ku wado ama wax uu ku shaqeeyo operation u baahan yahay shidaalka ku shaqeyn lahayn waa ma fahamtid marka aad raqiis uga dhignay waxaan rajeynaa inaa aad qiimaha hoos u dhigna meeshaas marka waxaa xusud mudan our team marka kooxdeena marka macallimiinta nala shaqeeya waxaa waaye ilaa iyo waxaan nahnaa 4 macallin sida shaashada kaga muuqata mid walbana wuxuu leeyahay muddo khibrad badan oo leeyahay 3 sano macallin Aamina sidoo kale 2 sano Cabdirasaaq oo kale 7 sano Yuusuf oo kale 4 sano waxaa ujeedaa yacni dad maaragtay team inay yihiin oo khibrad leh oo suuqan muddo dheer kusoo jiray oo 7 sano ilaa ku dhowaad kusoo jiray aa ujeedaa dadka wax ku baraya meeshaasna waa fursad kale oo marka aad khibrad kaga faa'iideysan kartid marka waxaa ka mid ah our fruits macnaha miraha aa gaarnay waxyaaba aa qaban marka dhowrkii sano ugu dambeeyay tirada ardayda aan waxbarasho iyo shaqo abuur u sameyn halkan sida ujeedid something academy waxaa la aasaasay 2016 ilaa iyo haddana ardaya wax barayna forecast bes aa barayn marka 2016 ardayda aan wax barnay waxay gaaraysaa 30 arday 2017 40 arday barna sanadkaas oo waxa u sameeyna shaqo abuur iyo waxbarasho qaarkood hadda maaragtay reerkooda ku filan yihiin lacag badan ay sameeyaan qaarkood waxaa waa taajiriin waay qaarkood waxaa waa millionaires ay gaareen alxamdulillah marka 2018 konton arday wax barnay 2019 60 arday 2020 oo ah sanadkan hadda ardayda ugu badneeda waxa soo saarnay 70 arday u sameynay waxbarasho iyo shaqo abuur intaba 2021 insha Allah wali ma gaarin waa arki doonaa dabcan waxaan rajeynaynaa inuu qiimaha oo marka oo sii kaco numberka intaan ka sii bato dabcan marka haddii marka marketing opportunity marka halkan waxaa ka jirto fursad bacnaha marketing ah oo aad meeshan marka ka faa'iidi kartid haddii intaa aad soo sheegnay aad suuq gey kartid marka dadka walaalaha gaarsii kartid yacni fursad ayaa ku heynaa aad nugula shaqaysan kartid ama lacag aan nugula sameyn kartid marka adiga haddii arday badan aan ugu soo xirtid waxaa helaysaa 50% faa'iido ah yacni ardayga haddii uu isdiiwaan geliyo oo adiga aan ugu soo xirtid waxaa helaysaa 50% adaa 50% adaa la haraa qofkii awoodo inuu walaalihiis kala gaarsiiyo fursadan ee uga faa'iideeya waxaan u ogolnahay 50% fiiga laga qaado ardayga fursad weyn waa dabcan yacni ajarna waad ka helaysaa laba faa'iido ayaa qabtaa kow horta waxaa waa qof walaalkaa waa caawisay oo cilmigaa gaarsiisay labana adiga shaqaysanaysa marka laba fursada meeshaas kaga baran marka waxyaaba aan marketingka oo maaragtay aad ku fiican yahay waxaa ka mid ah faa'iidada xad male intaa doontidaa samayn kartaa oo yacni waxay ku xiran tahay hadba adiga ardayda aan ugu soo xirtid the more arday aan ugu soo xirtid the more money aad samaynaysaa on time payment waxaa waa lacag bixin waqtigeeda lagu siinayo lacagta marka dib lagaaga dhigaayo hore laga siinayo sidoo kale waxaa ku siinaynaa marketing and resource kheyraad maaragtay oo marka aad ku martay
ku suuq gey karto koorsadeena waxaa kaa caawinaynaa qaabka ku suuq gey lahayd koorsadaas sida faa'iido u laba jibaar lahayd seminars ku siinaynaa aad ku horumari kartid commissionka aad ka heli kartid marketinga aad sameynaysid seminaaro iyo webinaaradaas ku siinaynaa tools ku siinaynaa banners aad ku xayeysiin kartid yani website ku sameynaynaa haddaad u baahan tahay oo kula shaqeynaynaa mar walba maxaa yeelay horumarkaaga horumarkeena sidoo kale waxaad awood u yeelanaysaa markaa marketing aad sameynaysid raad yani waxaad la socon doontaa xogta inta qof ee aad nagu soo xirtay inta ka faa'iiday iyo wixii la mid ah marka waxaa waa you in we in adina waxaa helaysaa annagana waxaa helaynaa 50% faa'iidaa helaysaa adiga annagana 50% faa'iidaa helaynaa marka waa faa'iido laba dhinac ah oo aad fursad weyn ah isleeyahay you grow we grow adina waa kobcaysaa annagana waa kobcaynaa oo markaa heshiis markaa meesha ka dhalanayo oo saas faa'iidada u kala qaybsanaynaa adoo markaana ajarna kugu sugan yahay maxaa yeelay qof walaalka cilmigan ogyaana gaarsiisay meeshaas marka ajar iyo lacagba waa ka helaysaa adduun iyo aqrabo marka we are paying telegram channel marka meeshaan soo fiiriya qof hadduu jiro waxaa lacag siinaynaa dadka telegramka iska leh channel haddaa leedahay lacaga ku ogolnahay haddii aana daawanaysid haddii telegram channel aad leedahay dad badan ay ku xiran yihiin waxaa diyaar u nahay inaan lacag kugu siino telegramkaas ma haysaa telegram channel iib ah yacni qofkii heli kara telegram channel oo iib ah oo markaa anaga ka iibsanayno waxaa u ogolnaa lacag aad u fara badan inaan uga gadno oo anaga aan la wareegno marka haddii telegram aad haysid iib ah ama aad taqaan qof hayo nagu soo xir meelaha nagala soo xiriiri doontid insha allah way noo soo socotaa halkaas nagala soo xiriiraysaa haddii telegram channel aad haysid dad Soomaali ay ku jiraan marka shuruudaha waxaa ka mid ah channelka waa inuusan ka yaraan dadka ku jira 5,000 haddii marka 5,000 ka yar dad ay ku jiraan ma kaa iibsan doono dadka ku jira kanalka waa inay ahaadaan Soomaali kaliya yani dadka channel ku jira waa inay ahaadaan dad Soomaaliya ma rabna dad ajaanib ah iyo Carab iyo Iiraaniyiin iyo waxaas dhan ma rabna dad Soomaali bes rabna waa inay ku jiraan channelka ay ku xiran yihiin qofka channelka iibinayo waa inuu asiga leeyahay ama owner oo ka yahay qiimaha aan ku rabno waa channelka waa lacag u dhaxayso $50 ilaa $150 iyadoo ay ku xiran tahay hadba dadka channelkaaga ku xiran tira ahaan intay gaarayaan yani waxaan ku ogolnahay lacag u dhaxayso $50 ilaa $150 inaan kaa siino channelka marka our contacts waxaa nagala soo xiriiri kartaa lambarka shaashada kaaga muuqda website-ka waa kaasaa qofkii u baahan inuu koorsada oo ku biiro lambarkaas WhatsApp ku soo wici karaa ama caadi u soo wici karaa website-ka oo iska diiwaan gali kartid waa kaas somethingacademy.com wixii su'aal haddii aad qabto ama xog u baahanta in laga caawiyo info@somethingacademy.com ayaa email ku soo diri kartaa waa laga soo jawaabaa emailkaaga daqiiqado gudahood